وحوي قلب ذوق بركي عدادة شوكتي وأي هدي كل هاف كاهيد حيري نظام بيرهيد عبد الكريم حسين قولاد بمدحوينوها أسوى الله وإنما أنت مدحوين حاف لو ديبي تنا محام كنا واحد صورتك شيء ما ملكي لورينشري سنترال ستيت أما كعام بحي سنة والجماعة ووجرتها إن لو هاللي أولوجا كلا قمنا تاسي ليبك أي لهيد يعتبر ده نقول يا بابا أقمني يا هموت السوق بي يا ولالك كلا حيران السدي وقطع درهسنا أي صورة تقلوي إن المديان حدود ده يغلق وده يهتدو markay sidaa noqotay waxa heshiiskii Djibouti la galay oo noqday in labada maamul la isku daro labada baarlamaan la isku daro sharciga la isku daro madaxdana la mideeyo magaalo madaxdana la yimaado galmudug halkaas ay ka yagleelanto dhameystiran waxa la tixraacay oo horay xeer u ahayd oo qaranka Soomaaliya lagu dhisay oo dawladda hadda jirta ay tixraac ku soo jirto waxay ahayd waagi dawladda Imbigati waxa ka soo horjeeday ururkii la oran jiray maxaakiimta oo awood ballaaran lahaa oo dalka inta badan qabsaday waataad ogeydeenoo dhiig badan oo daata ka bacdi ayaa la isku yimid markii la isku yimidna waxa la isla gartay baarlamaan islaagta la isku darto dawlad loo wada jiraa la isku darto deetana madaxweynaha xilligaa joogay ayaa inta daaqada ka baxay oo sharciga xilligaa joogay daaqada ka baxay oo baarlamaanka xilligaa joogay daaqada ka baxay oo la isku biiriyay 270 iyo 270 qaar laba dhinac ka yimid ayaa Sheekh Shariif madaxweyne qarana oo dastuuriya oo Soomaali leedahay oo ku noqdo dhabahaas waa dhabal lahayo way dawladda galmudug u dhisan ee aan ku wada joogno ee aan wasiirada u nahay xildhibaanada ay u yihiin ee shacbiga u tihiin haddii ilaahay ku maanta aan ka wada hadlay waxa weeye waa dawladdii dhul safarnimada ku heshiisay oo magaalada madaxa ku midowday oo loo maamul ahaa oo xaaf madaxweyne u yahay Sheekh Shaakirna ra'iisul wasaaraha u yahay xeerka iyo xurmada iyo baarlamaanka soo darsadana uu yahay midka lagu dhaqaayo in la ku xurmeeyo loo baahan yahay haddii marka barbarba waxa laga sharqabiyaa galmudug waxba ka maqano cadaadiyo waxba arrimaha laga hadlaa waxa weeye maamul goboleedyada jira ama dawladda federaalka hanweynankeeda iyo qabkeedu wuxuu siinaa inay dawlad u tahay Hargeysa iyo Somaliland iyo Hargeysa ayadoo wardhigle haaf ka haysata teetana markay adiga ku tiraahdo cadaadi iyo waxba maqan war adigu Hargeysa sheeganaysaa oo laga rabaa in xilka saaran yahay adoon ila maqan ila sidaas warku uu ahaado in adeega noocaasi waxa weeye inaad dhageysataan maamul goboleedu waa sidoo kale weeyaan dadkay ku xirantaa dadku inay hanka yeeshaan Sool iyo Sanaag Puntland waa sheegtaa Somaliland waa sheegtaa laba gobol waa weyn marka in la ku xuuxiyo cadaado aan nabad wada nahay oo walaalnahay oo wada wadaagnahay oo colaadina dhaxoolin oo raadiyahaas iyo shimbiro waaqlay yar jirto ina u dhagan nuglaataano aad mar walba su'aalaha ku soo dartaan galmudug baa kala maqan waxa weeye wax dadka shacbiga ay hantaan laga rabo niyadana ku dhisaan oo ay muujiyaan meel 100% ma jirto dalku waa dal hadii la ku maraya raas kaambori raas aseera xukuma anoo buurta saaran taas markaa wayna saas ahaataan dawladda doorashada la sheegayay waxa weeye meesha laga yiraahdo waxa la soo ilaahay soo dejiyay nabiyaal badan baa ilaahay soo dejiyay waxa lagu qatibay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam diinta islaamka waa lagu qatibay waa la laalay nabiyadii hore iyo diintoodii waa la laalay caalamka waxa ka taliya oo ilaahay u daayay waxa weeye diinta islaamka iyo nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka waa lagu gaaloobaa wax la laalay cidii hadba shaqo ka dhigata galmudug nidaamkeedu hore waa la laalay kii lagu midoobaan haysana wax la laala way wax raadinayaan marka waa wax bidca wado waa wax hadii la ko dhaqan shiica weeye shiicada maqashaaca weeye wax laga heshiiyay daba joogtaa marka
marka waxaan ha ku jaawareerina doorashadan halkaana looga heshiiyey bishaan hadda aan ku jiray 26keedii ayaa baarlamaanka la isku daray dawladuna malaha madaxweynaha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo arrimihiisu saas ugu dhow yihiin xilliga halkaas ka dirsada waa la isxoogi karaayo haddii in la isxoogo ceemaan laakiin in la istafaafulaa ceeba haddaan la tafaafulayn waxaan leenahay war nabad baan nahay warnimaan nabad ahayn oo nabad darrada ka shaqaynin waxaan kaloo rabaa inaan baaq iyada u diro deegaankan waxaa ka dhashay gobonimada dawladnimada Soomaaliya laakiin nasiib darrada uu leeyahay waxa weeye dawladnimada iyo calanimada Soomaaliya markay dhaciyaan ama nabadda dhaciyaan waxa loogu dawgalaa kuwa ayaga ah ayaa dadka tan lagu talaalo la adeegsadaa ma jiro deegaan loo adeegsado dadka u dhashay aan ka ahayn galmudug taariikhdu sidaa weey tusaale aan siinaya xildhibaanada Soomaaliland u fadhiya dawladda federaalka ayagoo la waa go'ayna oo dal baana oo calan baana ayaan xildhibaanada iyo senatarada ugu jira federaalka aan qofna ku dhicin inuu yiraahdo nimanka dal gooniyahay noqdeen hadii la kuma wax laga yiraahdo afkay goosanayaan annagana maalin walba diyaaradu waxay hadda meel ka dijinayaan nin annaga ah ama gabar annaga ah oo leh aan hebel riixo si aniga wax layga dhigo hebel aan riixo wax layga dhigana wax ishaas loo yeelay waxaan leeyahay la isku xishoodo gobonimada hal la qaato dalka hal la wada ilaashado dawladda Soomaaliyeedna haddaynu dawladda galmudug waxaan leenahay iyo shacbigooduba waxaan dugaal la dugaalsado gobonimadaanu asal u nahay qarannimadaanu asal u nahay Soomaaliyo dhan baa ku dhan galmudug waa ka maamulada waxaan uga duwanaa waa ku midaysanahay Soomaaliya dhan baa ku midaysan ciddii intaan xambaaro dhabarka naga qaniintaa garaarka u go'i jiray waana eedi jirtay waana eedi doontaa dagaal waa ka daalay daandaansiga kitaabka naga daaya dastuurkeena nagu ixtiraama midnimadana nagu ixtiraama annagoo kala daasan oo aad kala daaysan annagoo dandarra halkan laga abuuray ayaa waagi madaxtooyada loogu daatay dandarra halkan lagu abuuray yeesha madaxtooyada u daadane dalku waa federaal hal is ixtiraama leh